الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى ما أنت وحنكه الله يا أحكامته صلاة عيدة مركا لوتو كان يقريها ما دام حليذا دنبه وجرى عذر آد أفافايا عذر كاس درتي سنة ليري iyaanan la kulmin ee guryihiina hala joogo baa waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago axkaamta ka dhalanayso marka guriga lagu tukanayo nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid salaada ciidda ku tukada bannaanka ilaa uu yimaado moogii arrimo maaragtay keeni kara inaan la kulmin nabiga sallallahu calayhi wasallam hadduu yimaado roob oo kale wuxuu ku tukan jiray masaajidda buu nabiga sallallahu calayhi wasallam ku tukan jiray salaada ciidda sida ay ku tageen culammada muslimiinta qaarkood waa sunna mu'akkada ama sunno la adkeeyey culammada qaar waxay gaarsiiyeen heer ay dhahaan waa waajib maadaama nabiga sallallahu calayhi wasallam uusan ka tegin marka salaada ciidda waqtiga la tukana waa markii ay qoraxda soo baxdo korna u soo kacdo ilaa qiyaastii waran oo kale marka dadka salaada tukanayo kuna tukanayo gurigooda waxaa laga rabaa inay samaystaan imaamkaas oo ayaga tujiya inta aysan salaada galinna waxaa laga rabaa inay la yimaadaan takbiirta inay takbiirsadaan marka ay takbiirsadaan ay takbiirta dhameeyaan baa waxaa laga rabaa inay saftaan saf ay galaan imaamkan uu ugu horeeyo raggana ay ku xigsadaan hadday dumar guriga joogaanna ay dumarka gadaasha ragga istaagaan marka imaamka tujinaya dadka gurigana ku tujinaya waxaa laga rabaa markuu takbiiratul ixraamka ama takbiiratul ixraamka markuu la yimaado inuu la yimaado toddoba takbiiraad oo kale inuu la yimaado oo ka gooni ah ama ka gaar ah takbiirtii xirashada ama takbiiratul ixraamka markuu toddobadas takbiirood la yimaado waxaa laga rabaa inuu akhriyo faatixada markuu akhriyo nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid ku xijiya sabbix isma rabbika alaclaa hadduusan qofka tujina dadka uusan gelina sabbix isma rabbika alaclaa suurado gaaban buu akhrin karaa sida idaa jaa tabbat qulwalla suuratu nnaas falaq suuradahaas gagaaban buu akhrin karaa oo asaga u fudud kadib sidaas buu ku dhammaynayaa ragcaddii koowaad isagoo rukuucayo samica allahu liman xamida leh sujuudayo marka uu soo kaco soo kicitaankaas uu soo kacayo wuxuu leeyahay allahu akbar marka takbiirtaas oo ah takbiirtii soo kicitaanka wuxuu samaynayaa 5 kale oon takbiirtaas ay ku jirin markuu 5 takbiirood la yimaado baa wuxuu akhrinayaa faatixada markuu dhameeyo wuxuu akhrinayaa hal ataaka xadiithul ghaashiya hadduu garanaynin wuxuu ku gaabsanayaa suuradaha kale uu garanayo marka culamaa'ul muslimiin waxay dhaheen khudbad ma jirtaa khudbad in la akhriyo qasab ma aha laakiin imaamka hadduu khudbad u istaago wuxuu dhihi karaa qofka khudbada raba ha dhegaysto qofka aan rabinna qasab kuma inuu dhegaysto marka saxaabada nabiga sallallahu calayhi wasallam sida anas oo kale hadday salaada ciidda ka tagto wuxuu samayn jiray inuu soo laabto gurigiisa imaado baa wuxuu kulmin jiray ehelkiisa buu kulmin jiray kadibna qaabka aan soo sheegay buu u tujin jiray asagoo tujinaya 2 ragcadood ee salaada ciidda culamaa'ul muslimiin waxay dhaheen salaada ciidda waqtigeeda waa markii qoraxda kor u soo kacdo qiyaastii waran oo kale xilligaas salaadii way joogtaa laakiin si ciidul fitriga qofka aan bixinin uu u bixiyo waa salaada dib in loo dhigo axkaamta salaada looga baahan yahay inta aan la imaanin waa
qofka waxaa laga rabaa inuu soo cuno waxyaaba ay ka mid yihiin timir, inuu soo cuno timir maadaama bil dhan uu soonaa. nabiga sallallahu calayhi wasalamna wuxuu ahaa mid soo cuno timir tiris dheer ah 3, 5, 7. marka insha allahu tacaala salaada ciid marka aad tukanaysaan imaam samaysta, imaamkaasna ha idin tujiyo, ha la yimaado insha allahu tacaala takbiirtii xirashada oo ah takbiiratul ixraamki allahu akbar ha yiraahdo. takbiirtaas marka laga reebo 7 takbiiraad kale ha la yimaado, faatixada ha akhriyo, sabixisma rabbika lacala ha akhriyo hadduu garanayo, ha la yimaado rakacadda labaad, ha la yimaado marka laga reebo takbiirta soo kicitaanka 5 takbiiraad kale ha la yimaado. markuu la yimaado faatixada ha akhriyo, hal ataaka xadiithul ghaashiya akhriyo hadduu garanayo, hadduusan garanaynina suurado kale oo gaaban maaragtay ha ku gaabsada insha allahu tacaala. qaabkaas baa guryaha loogu tukanayaa. waxaan idin rajaynaya insha allahu tacaala ciid farxad leh. allah subxaanahu watacaala soonkeena iyo acmaasheena susuubanaa aan soo qabanay hanaga aqbalo, dhammaanteena kuwii naarta laga xoray allah subxaanahu watacaala ha inaga dhigo insha allahu tacaala. intaas baan jeclaystay inaan idinla wadaago. intii aan saxay allah subxaanahu watacaala ha iga abaalmariyo, intii aan qaldayna allah subxaanahu watacaala ha iga cafiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.